qofka musuqmaasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo wuxuuna u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso war guriga xaggee ka dhisanaysaa haddii magaalada quruntay magaalada haddaysan amni lahayn oo qofkii amniga ka shaqeynaya mushaarkiisa aan la siin karin xaggee ka dhisanaysaa guri caruurtaada xaggee iskoolka aadayan haddii adigu aad jeebka gashatay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maan gaaban ummad uma adeegi karo waa qof dan shaksi ah ka shaqeeya aqoonta in lagu dadaalo qof kastoo halkan fadhiya waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasana inuu aqoontiis ku yimid enaf maaha inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo areada ladiin xil saaray aad ku noqotaan qofka ugu khibradda badan ugu aqoonta badan oo wax laga barto marka inaan laga caajisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado aqoonta kor loo qaado oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso ay ugu horeyso aqoonta civil educationka mas-uuliyadda adiga aada meesha ku fadhido maxay tahay horta wax entitlement ah maaha awooga oo kaa dhexlay maaha waa ammaano lagu aad iyo aad buu nooga mahad celiyey aad iyo aad buu ugu qancay warbixinada iyo horumarka magaaladan ka socda iyo sida maamulka gobolka banaadir u yahay maamulkii shacabka ugu adeegaya shacabka madaxweynaha isagana wuxuu nagula dardaarmay inaan bulshada u adeegno in aragtidiis fog ay tahay caasimadan inay la tarsanto caasimadaha adduunka in muxuu ahaa aad iyo aad wuxuu nooga codsaday waxay ahayd inaan ilaalino ammaanada shacabka u dhirmino shacabka loo adeego agaasimayaashii dadkiina uu kula dardaarmay uu yidhi qofkii shaqadiis ka soo bixi waayana isla xisaabtan dhab ah inuu jiri doono marka runtii aragtidiisa fog ee caasimadda iyo sida uu u rabo in caasimaddan ay horumarkeedii lasii ballaariyo